madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici iyo barasabka gobolka Togdheer ayaa kaalmo raashin baca iyo bustayaal ah u qaybiyay in ka badan 100 ka mid ah qoysas khasaare ka soo gaadheen roobab lixaad leh oo ka daay magaalada Burco iyo daadad ku soo jabay magaalada Burco. Qoysaskani oo ka mid ah barakacayaasha ka soo jeeda dalka Soomaaliya ee degan magaalada Burco ayaa aad uga mahad celiyay una duceeyay madaxweyne ku-xigeenka iyo barasabka gobolka Togdheer oo qayladhaantooda gaarsiiyay madaxda ugu sareysa dalka. dawladda Soomaaliland madaxdeeda kala gidisan ciidankeeda qalabka sida oo kala gidisan daadadka iyo rafaadka silca markoo la qabsaday aan dawladda u sheegnay way sarakaceen rag iyo dumar saqiir iyo kibir shacabkii dhan way noo sarakaceen raashin bay noo keeneen bacay noo keeneen bustay noo keeneen wax walba noo keeneen wixii karaankooda wax ay nagala rabteen male ilaahi khayr ha siiyo dawladda Soomaaliland tiir bir aan jabin aan jaleecin aan liclicin Allah ka dhigo markuu horeyso aamin ilaahay dawladda Soomaaliland kuwi tawxiidka ku dhinto oo ku noolaada Allah ka dhigo madaxda caafimaad saraacan Allah noo siiyo shacabka caafimaad saraacan Allah siiyo iljini insana Allah ka xijaabo cadawgoodana Allah jibiyo annagu waa duceynayna dawladdu 24 saac amaanka wax walba u soo jeedaa boolisku waa jabeen waa halaagmeen annaga dartayno ma garteen marka meel walba joogtiin Soomaaliya meel walba joogtiin say nimanka noogu gurmadeen dawladda noogu gurmada shacabka noogu gurmada noogu soo gurmada dad baana qaad wax baana qaad way noo dadaaleen gudiga abaarada way noo gurmadeen oo dawladda dhan way noo gurmaday ilaahu khayr sii barasabka gobolka Togdheer Maxamed Ibrahim Aadan Qabo ayaa isna madaxweyne ku-xigeenka ku bogaadiyay sidii degdeg ahayd ee ka gudiyahan uga soo jawaabeen qayladhaantaasi. maanta halkan waxaanu raashinkan ku siinaynaa maalmihii dhaweeto waxa dhacay roob aan hore noogu dhici jirin 3 cisho isku xigta Burco bariyaha roob mu helay maalintii ugu yariyay 45 daqiiqo maalintii ugu badayna saacad iyo 10 daqiiqo marka roobkaas wuxuu waxyeelay dadkii danyarta ahaa ee deegaanka Burco meelaha waliba dooxyada deganaa markii aanu kormeer ku marnay qaybtii ugu liidatay waxay noqdeen 100 kan qoys oo meel wada yaala oo dadka IDP loo yaqaano ama barakacayaasha oo ka soo kacay walaalihii koonfur ka yimi ayay haayeen dadkaas waxaan idin soo dirnay baaq anagoo gudoomiye guddiga abaaraha baaqii si fiican baa uga soo jawaabtay alxamdulilah 100 qoys raashino kaliya ma bacdi iyo bustii baa u raacay waxaan aad ugu mahadnaqaynaa ugu horeyn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mar labaad guddida abaaraha gudoomiyaha madaxweyne ku-xigeenka guddiga abaaraha oo markiiba ka soo jawaabay baaqayagii gabagabadiina madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ayaa u qaybiyay dadweynahaasi ku caydhoobay daadadka guryahooda ka qaatay ayaa sheegay in xukuumad ahaan iyo guddi ahaanba ay xil gaar ah ka saaran yahay dadka qaxoontiga ee ka soo jeeda wadamada ay jaarka yihiin. dad walaalaheena oo kamid ah barakacayaasha degan magaalada Burco oo macad Ilaahay noo dejiyay ee roobka Ilaahay noo keenay oo muddo badan u baahnay runtii oo dalkiisa badan ka wadaayay haddana waxa Soomaaliland maxaa walba nuqsaan leh mar dib u keenay ka roobku intuu keenay dadkii ay saameysay runtii oo guryaha gobolka iyo maamulka dawladda loo soo gudbiyeen in 100 qoys ay ugu daran yihiin markaas ay afaqooyeen wixii uu hoos yaalay aqalada maanta bacaha kadib markaan helnay baaqaas ay noo soo gudbiyeen guddigii gurmadka abaaraha heer qaran waxay ka shireen degdeg lagu jawaabeen in 100 qoys markaa wixii loo soo tiri kariyay inuu soo gudbinay halka u dhigantay 100 qoys oo raashin qadar ku noolaadaan iyo buste iyo bacihii ay maartay Allah yaree maartay ku noolyihiin ay dusha ka saaran lahaayeen roobka dambe iska ilaalin lahaayeen yaro ku noolnay ayaan way u maasanyihiin waanu mahadnaqaynaa runtii in dadka madaxda degmooyinka gobolada joogta inay wixii dhibaato jira sida loo kala dhib badan yahay inuu soo gudbiyaan sida wixii lagu qaban karo Khadar Cabdirasaaq Saleebaan Khadar